mar aha wadanka ugu faqrisan wadamada qaliijka balse maanta wuxuu ugu horeeyaa kuwa ugu taajirsan gobolka welina waxa uu wadaa kubcintiisa dhanka dhaqaalaha waxa dalkaasi uu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisa shidaalka uu iibgeeyo wadamada gobolka iyo adduunka intiisa kale 6 wadan oo Carab ah ayaa ku dhawaaqay in xiriirka ay u jireen dawladda Qatar oo diris la qaar ka mid ah 6 wadan ee ku dhawaaqay inay calaaqaadka ay u jireen dalkaasi sabab la xiriirta inay taageeraan kooxaha argagixisada ay ugu yeereen dawladda Qatar waxay iska diiday eedeynta kaga timid 6daasi wadan ay ahayd inay taageerto Al-Qaacida iyo Daacish oo dagaal ka wada qaar ka mid ah dalalka ku dhawaaqay in xiriirka ay u jireen wakaalada wararka ee Sacuudiga waxay baahisay in xukuumadda Riyaad ay xiritay xuduudda ay la wadaagta dalka Qatar ay nagabi ahaanba diidi doonto in looga soo gudbo dhanka dhulka badda iyo cirka dalka Qatar waxa qani uu ku yahay soo saarista gaaska waxaana uu iibgeeyaa dalal badan oo caalamka ah go'aankan ka soo baxay dalalka Sacuudiga Masar Bahrain Yemen Imaaraadka iyo Liibiya waxa uu sababayaa inay kala furtaan dalalka ugu awoodda badan wadamada qaliijka oo dhamaantood saaxiib dhow la ah Mareykanka Sacuudiga waxay tahay sababta ugu weyn oo go'aankan uu qaatay sabab uu ku eedeeyay in dawladda Qatar ay taageerto wada shaqeyn ay kala dhaxayso kooxaha argagixisada dawladda Bahrain ayaa markii hore bilowday in dalkeeda ay ka saarto diblomaasiyiinta u dhashay dalka Qatar waxaana ku xigay Sacuudiga Imaaraadka Masar Yemen iyo Liibiya oo sheegay in calaaqaadka ay u jireen dalka Qatar wakaalada wararka ee Sacuudiga waxay baahisay in loo qaaday sababta go'aankana ay tahay dhanka ammaanka iyo qatar argagixiso oo kaga imaan kara dalka Qatar waxaana la siiyay muwaadiniinta reer Qatar inay 2 toddobaad ay kaga baxaan boqortooyada Sacuudiga dawladda Imaaraadka waxay diblomaasiyiinta reer Qatar u qabatay muddo 2 maalin ah inay isaga baxaan dalka Imaaraadka Carabta maadaama si lamid ah Sacuudiga argagixiso ay ku eedeysay dalka Qatar dhamaan diyaaradaha Imaaraadka ayaa waxa la sheegay inay joojin doonaan duulimaadyadii ay ku tagi jireen dalka Qatar madaxweynaha Mareykanka oo dhawaan tagay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga waxa uu ka dalbaday wadamada Islaamka inay hogaamiyaan olole ka dhan ah xagjirnimada waxaana Iiraan uu ku eedeeyay inay qayb ka tahay xasilooni darrida bariga dhexe marka si qoto dheer loo eego arrintan waxa salka ay ku haysaa danaha wadamada qaliijka ay ka leeyihiin gobolka iyo dhaqaalaha kobcaya waxa hadda halis galaya saameynna ay ka dhalan doontaa dawladda Qatar marka loo eego dhanka cuntada duulimaadyada iyo garoomo kubadda cagta oo dalka Qatar laga hirgelinayay diyaaradda Abu Dhabi iyo Itixaad ayaa joojin doona duulimaadyadii ay ku tagi jireen magaalada Dooxa oo dalka Qatar ah laga bilaabo maalinta biri ah waxaana maalin walba labada diyaaradood ay ku tagi jireen magaalada Dooxa in ka badan 10 jeer waxa sidoo kale la joojin doona miisaaniyad shirkadda ay Fly Dubai ka hirgelinaysa dalkaasi waxa sidoo kale joogsan doona duulimaadyada diyaaradaha Bahrain Gulf Air Egypt Air iyo duulimaadyo kale qasaaraha ugu badan waxa la kulmi doona diyaaradda Qatar oo ka dulbabanaya calanka dalkaasi oo maalin walba tagi jirtay magaalooyinka Qaahira Abu Dhabi Riyadh iyo dalal kale dhanka dhismaha marka loo eego waxa la filayaa inay joogsadaan dekad cusub oo la doonayo in laga hirgeliyo dalka Qatar goob weyn oo la doonayo in zone caafimaad laga dhigo mashaariic ay ku jiraan 8 garoon oo kubadda cagta ah oo loo qorsheeyay ciyaaraha adduunka ee 2022 oo wadanka Qatar uu martigelinayo sababaha mashaariicdaasi qaarkood u joogsanayaan waxa lagu sheegay inay tahay inaysan heli doonin shubka iyo biraha oo maraakiib looga keenay jiray dalka Sacuudiga bariiska iyo cuntooyin kale waxay ka joogsan doonaan reer Qatar waxaase laga yaabaa in wadamo kale ay ka doontaan Sacuudiga ayay markii hore ay ka iibsan jireen waxaana arrimahan oo dhan ay arinta ka dhigaysaa qatar dhanka nolosha diyaaradaha Qatar markii ugu horeysay waxay dalalka qaaradda Yurub ay ku tagi jireen muddo 6 saacadood balse haatan waxa la sheegayaa inay ku qaadan doonto muddo 8 ilaa 9 saacadood maadaama loo diiday hawada wadamada xiriirka u jiray qaarkood inay adeegsadaan Soomaaliya oo dhamaan dawladaha xiriirka u jiray dawladda Qatar ee xiriirka uu kala dhaxeeyo ayaa la sugayaa go'aanka ay qaadan karto waxaana uu noqon doonaa mid saameyntiisa gaarka ah yeelanaya dawladda Qatar waxa ay sheegtay dhawaan inay heshiisiin ka dhex abuuri doonto Al-Shabaab iyo Soomaaliya iyadoo taana aan la ogeyn sida ay Soomaaliya uga faa'iideysan karto